haddii aan warbixin kooban kaa siiyo shirka wuxuu galay maalintiisa saddexaad waa shir aad u muhiim ah maanta waxaa shirka qayb ka ahaa oo noo hogaaminayay wasiirka difaaca ee dowladda Soomaaliya maanta waxaa ka soo qayb galay dhammaan madaxda dowladaha loo yaqaano TCC-da ama Troop Contributing Countries ee ciidamada dalka Soomaaliya ay ka joogaan wasiiradooda gaashaandhigga taliyayaashooda ciidamada oo hore u joogay wasiiradooda arrimaha dibadda wuxuu ahaa shir aad u muhiim ah oo high level forum ah oo aad u sareeyo soo qaybgiisa oo aad u sareeyo ayuu ahaa waxyaabaha diiradda la isla saaray waxaa ka mid ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya sida ay isugu duuban yihiin oo ah fursad aad qaali u ah shacab iyo dowlad isla socdo oo diyaar u ah inay iska dul qaadaan argagixisada al-shabaab sida aad ogtihiin khawaarijtan argagixisada ah waxay ka kooban yihiin dowlado kale dad shisheeye dad fara badan oo dambiilayaal ah oo dowlado kale ka kala yimid waaye Soomaaliyana waxay nasiib darro noqotay oo hooy ay ka dhigteen moogiga meel Soomaaliya iyaga malahan Soomaaliya iskale wadada hadda la isaga xoreynayana waxa iska hela shacabka Soomaaliyeed waxaana ku hogaaminayo dowladooda ayaa ku hogaaminaysa taas garowshaheeda iyo maxaa la dhihi jiray qaabkii lagu taageeri lahaa ayay muhiimadda tahay dagaalkan lagu jiro khawaarijta oo dagaal muqaddas ah culimada Soomaaliyeed ay ka fadwoodeen fadwo laga soo saaray muhiimna ay tahay shacabka Soomaaliyeed in ay si xoog leh ugu maxaa la dhihi jiray qoryaha ugu qaataan oo ay isaga dhiciyaan shabaab isaga dhiciyaan dowladana ay ku hogaamiso maanta waa maalin muhiim ah ayay ahayd aad muhiim u ah dowladda Soomaaliya ee shacabka Soomaaliyeed waayo muhiimadda waxa la saaray aad loo saaray in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda lagu garab istaago in amnigooda iyaga ay sugtaan in iyaga gacmahooda ay ku sugtaan amnigooda taageerana loo fidiyo la garab istaago marka fursad qaali ay noo tahay waan ugu mahadcelinaynaa dowladaha walaalaha aan nahay diriska aan nahay ee ciidamada dalka Soomaaliya uu ka joogo anaga ka dowlad ahaana liidkaas horaan u qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii xilka uu la wareegay ku dhawaaqay in argagixisada dagaal lala galo tii ayaana mabdi ayaa la daba socdaa kaas ayaana laga bira dhalinayaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo shirka muhiimadiisa maantana intaas ayuu ahaa aad iyo aad ayuu mahadsantahay